ergey gaarkii qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Kay oo socdaal ku jooga Puntland gaar ahaan magaalada Garowe ayaa kulamo la qaatay odayaasha dhaqanka haweenka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan sida uu ku soo waramayo wariyaha magaalada Garowe Maxamed Saciid Yuusuf. Danjire Nicholas Kay oo maalintii labaad ku sugan magaalada Garowe ayaa maanta kulamo la qaatay isimada Puntland haweenka iyo ururada bulshada rayidka kuwaasi oo diiradda lagu saarayay doorashooyinka soo socda ee Puntland iyo sidii ay hab nabadgelyo ugu qabsoomi lahaayeen. markii uu soo dhamaaday kulankii oo Danjire Kay la qaatay odayaasha dhaqanka Puntland ayaa waxa si wada jira shir jaraa'id u qabtay Suldaan Saciid Maxamed Garaase oo kamid ah isimada Puntland iyo Ambassador Kay waxayna kaga warameen waxyaabihii ay ka wada hadleen. Suldaan Saciid Maxamed Garaase oo hadalka ku horeeyay ayaa sheegay inay ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka iyo soo xulidda baarlamaanka dhammaan ay isku afgarteen waxyaabihii ay ka wada hadleen. dhinaca kale waxa uu suldaanku sheegay in Garowe lagu qaban doono shir ay yeelan doonaan isimada Puntland. waxaan ka wada hadalnay arrimo badan nabadgelyada dib u heshiisiinta baarlamaanka oo aanu ka wada hadalnay in gabdhaha wax laga daro wixii aanu ku wada hadalnay waa isku waafaqnay si fiicanna waa isku afkaran isimaduna waxay go'aamiyeen intii iyaga awoodooda ah inay la shaqeeyaan beesha caalamka iyo sida uu doonayo wakiilka Soomaaliya oo ah in si sinaana looga wada qayb galo baarlamaanka iyo doorashada Puntland oo soo socota. Danjire Nicholas Kay ayaa isaguna sheegay inay isimada Puntland ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka iyo soo xulidda xildhibaanada cusub wuxuuna si gaar ah u xusay inay farxad gelisay in baarlamaanka soo socda lagu dari doono 5 haween oo ka mid noqon doona taasi oo isimadu ka ballan qaadeen. We had a very important discussion. I came today to listen to the elders. waxaanu yeelanay kulan mihiina waxaanan maanta u imid inaan dhageysto odayaasha dhaqanka oo aan ka bartay sida ay u gudanayaan hawshooda odaytinimo ee soo xulidda mudanayaasha baarlamaanka waxaana ii sharaxeen qaybo ka mid ah tallaabooyinka ay ku soo xulayaan iyagoo isticmaalaya hab dhaqankooda. waxay kaloo ii sheegeen in ay soo xulayaan xildhibaano ay ka go'an tahay nidaamka federaalka Soomaaliya iyo waliba in ay sii wadaan nidaamka dimuqraadiyadeynta Puntland. waxay kaloo ii sheegeen oo i dhiirigelisay maanta inay soo xuli doonaan ilaa 5 dumar ah oo ka mid noqon doona baarlamaanka Puntland. They will choose members of parliament also who are committed to a democratization process, and they will also choose members of parliament that include at least 5 women. So this was very encouraging news for me today. dhinaca kale Ambassador Kay waxa uu kulan la qaatay mas'uuliyiinta wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska Puntland oo ay ka wada hadleen arrimaha soo xulidda baarlamaanka iyo doorka haweenku ku yeelan doono. kulamada ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Kay oo kula kulmayo isimada haweenka iyo bulshada rayidka ayaa qayb ka qorshe uu ugu gogol xaarayo doorashooyinka soo socda ee Puntland la filayo inay ka dhacaan sanadka cusub bilowgiisa. waxaana lagu wadaa in maalmaha soo socda uu socdaal ku tago magaalooyinka Boosaaso iyo Gaalkacyo si uu halkaasi ugu kulmo isimada ku sugan iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Maxamed Saciid, Somali Channel, Garowe. ergey gaarkii qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Kay oo socdaal ku jooga Puntland gaar ahaan magaalada Garowe ayaa kulamo la qaatay odayaasha dhaqanka haweenka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan sida uu ku soo waramayo wariyaha magaalada Garowe Maxamed Saciid Yuusuf. Danjire Nicholas Kay oo maalintii labaad ku sugan magaalada Garowe ayaa maanta kulamo la qaatay isimada Puntland haweenka iyo ururada bulshada rayidka kuwaasi oo diiradda lagu saarayay doorashooyinka soo socda ee Puntland iyo sidii ay hab nabadgelyo ugu qabsoomi lahaayeen. markii uu soo dhamaaday kulankii oo Danjire Kay la qaatay odayaasha dhaqanka Puntland ayaa waxa si wada jira shir jaraa'id u qabtay Suldaan Saciid Maxamed Garaase oo kamid ah isimada Puntland iyo Ambassador Kay waxayna kaga warameen waxyaabihii ay ka wada hadleen.
suldaan Siciid Maxamed Garaase oo hadalka ku horeeyay ayaa sheegay inay ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka iyo soo xulidda baarlamaanka dhammaan ay isku afgarteen waxyaabihii ay ka wada hadleen dhinaca kale